dadweynaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa mar uu telefishinka caalamiga Star uu wax ka weydiiyay aragtidooda ku aadan saldhigga military ee Imaaraadka Carabku uu keenayo magaalada Berbera ee xarunta gobolkaasi Saaxil ayaa waxay dadweynuhu aragtiyo kala duwan ka dhigteen arrimahaasi qaarkood waa ay taageereen halka qaarkoodna ay arrintaas ku tilmaameen mid sharci darro ah oo aanay ogolaan doonin iyagoona baaqiyo kala duwan u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland laga dheeyo Berbera ma taageersanin waayo waxa weeyaan maxay haydaanay wadan shaqeeyayna soo gal mar rabno kolka in hadii uu madaxweynuhu ixtiraami waayo baarlamaanka inuu ixtiraamay aragtida shacabka iyo rabitaanka bulshada dalku ma hadal xolaadeed ma geyno oo raali kaminin in godobana loo geliyo wadamada dariska iyo dunida kale islaamka toona ma karayno xaalad kale dadkan danyarta ah ee dhaqaale la'aanta iyo shaqo la'aanta xaaladdu hayso haddaad dagaal iyo colaad adana u soo gudbisiin oo soo kordhisay waa nasiib darro Saleebaanna sidii wax guri uu leeyahay inuu ka xira bax adu naga yaanu garan maayo dadkii weynii waaweynaa soo dhaqmayaan ku yareeyaan waxa laga malay waxa la yiri reerka aduu waayeelkiisu durbaanka tumo caruurta sarkacada neekisabale ee Soomaaliland wada neekisay iyo ku dhawday kolka hadii mar waayeelkina waxa ku dhaqmay way ummadan abaaruhu daashadeen sanad military uma baahna in loo keenay saad u baahantay in loo keenay war inta Imaaraadka qori iyo ka soo qaadayaan dabaabaha ka keenayaan miyay daqiiqyo bariis uga soo qaadaan ummadankoda haddii saldhig military oo diyaaradu sida uga kacaya haddii Soomaaliland soo degay hambal iyo baan leeyahay anugu madaxweynaha intii soo saxeexdayna waan ku hambalyeynaya saldhigga ra'yiga ku aadan saldhigga horta wuxuu faa'iido leeyahay oo khasaare leeyahay waa la arki doonaa hadduu faa'iido leeyahay soo bixi doontaa khasaarihi hadduu leeyahay soo bixi doontaa innaguna runtii dad rabshadaha iyo dagaalla karaya ma nihin waxaan aragtidayda waxa weeyaan runtii waxay dawladda kulliye waxay aad iyo aad ugu baaqaysaa in geeska Afrika uu mar labaad iyo mar saddexaadba qori dabada dhexdeeda ay noqoto xaalad aad iyo aad u ololeysa isku bedesho taasina ma aha shay habboon oo maxay kulli qaranka Soomaaliland kulli shakhsiyaadkaas waa shakhsiyaad ka geli dambi qaranka Soomaaliland ma ahana wax munaasib waxaana leeyahay arrinkaas xukuumadda inta taagan waa hadal ama kulli diib ay maxay hadana Berbera ay qaranka iyo dalkaba ay gaf ka galeen hadday taa maanta la yeelana shacabka Soomaaliland waxa leeyahay waa idinku isku tashta meeshan dawlad ma jirto maqaarkaas runbay naftu kaga jirtay oo waa sidii ugu dambeysay waa xarbi ugu dambeysay waa sii galgalanaysaa waar ha laga tashto dalkan cid maamulo maanta gacan ku haysaa ma jirto nin waliba dantiisu wataa saldhigga militariga ee dalka Imaaraadka laga gaday magaalada Berbera waa arin sharaf dhac qaran oo ballaaran keenaysa Soomaaliland iyadii baa daala dhacaysay Soomaaliland markiidii hore handicap iyadoo xuduudeedii cumahaygi marnaba istaagay ayay haddana u anba qaadaysaa inay ubadkeegii iyo keegii agoonka ahaa iyo keega waxba aysan kii jaamacadda laga bixin kari waayaba mustaqbalkooda inay laasho waxaan taageersanahay saldhigga military ee Imaaraadka Carabta uu siiyay madaxweyne Siiraanyo aad baan u taageersanahay waxayna soo kordhinaysaa wadanka dhaqaale farabadan iyo horumar haddii la siiyo in militariga in muxuu Imaaraadka Carabta bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo aragtida ka dhiibanaya dekada la gatay ee ku taala Berbera airportkii Berbera labadaba hortaan waxa la dunin gurigiisa kareysto cod ka kareeyo in lagu buuqa horta ma banaanaan leh anu waxa la dekada barragii lahaaba kareystay taas oo cadeyna waxaayeen Siciid Cilmi Rooble hadalkiisa uu yiri waa ragow ragga u sheego la garanayaa meeshina dhacsada si kastaba ha ahaatee waayadii ugu dambeysay aragtida ku aadan saldhigga military ee Imaaraadka Carabku keenayo magaalada Berbera ayaa noqotay hadal haynta aadka u xoogan ee la saddex marayo guud ahaanba deegaanada Soomaaliland taas oo keentay khilaafyo hor leh oo dadweynuhu ay isweydiiyaan muhiimadda ama faa'iidada ay leedahay in saldhig military la keeno magaalada Berbera hase ahaatee xukuumaddu arrintaasi way ku guuleysatay inay horgeyso labada gole ee baarlamaanka iyo guurtida
balse dadweynuhu weli aragtidoodu way socotaa. waa Nuux Kadiye telefishinka caalamiga ee Star magaalada Boorama.